رئيس الوزراء الصومالي دكتور عبدولي محمد قاس iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa ku yimid booqasho gaaban dalka Norway ee magaalada Oslo. Raiisul wasaaraha ayaa wafdiga uu hogaaminayo waxa ka mid ahaa Ambassador Nuur Cadde iyo hay'adda dawladda Engineer Irisow. booqashada wafdigan ballaaran ayaa ah mid ay kula kulmayaan hogaanka dalka Norway madax ka tirsan oo ay kala hadli doonaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya iyo sidii loogu soo heli lahaa nabad guud ahaan dalka Soomaaliya. madaxdan sare ee booqashada ku timid dalka Norway ayaa lagu wadaa in dhowr maalmood ay joogi doonaan dalkan iyagoo markaa kulanka ay la yeelan doonaan sida lagu soo waramayo ay noqon doonto maalinta salaasada ee soo socota kulankaasi ay la yeelan doonaan Soomaalida dalkan degan isagoo Cabduuli sheegay inuu kala hadli doono Soomaalida xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay maanta. wax ka weydiiyay shirkii ka dhacay London iyo arrimihii qodobada ka soo baxay isagoo qaar ka mid ah faahfaahin iga siinayna walaal waa maasantahay waxaan u nimid Norway waxa weeye wadankan Norway la yiraahdo waa wadan aad Soomaaliya muhiim ugu ah waa wadan ka qayb qaata dhaqaalana ku bixiya kadib socodka nabadda Soomaaliyeed iyo barsoska socda marka ayagaan u nimid booqasho rasmi ku nimid waana waxaan ku hadli doonaa sidii xiriirkaas Norway iyo Soomaaliya loo horumarin lahaa loo sanbaqaday iyana u taageeri lahaayeen barnaamijka socda ee road map ka dhameystirkiisa runtiina dhaqaale badan way ku bixiyaan aad baan u taageersan yihiin in Soomaalidu ay gaarto waxa degan tira 20 kun oo Soomaali iyo qaxooti ku ah ama ajaanib ku ah dalkan in mudaan deganaa ma noqonaysa mid aad dadkii la kulanto waqti aad u hesho marka aad u sheegto xaaladda Soomaaliya sida ay ku sugan tahay maanta dabcan booqashadeeda qayb dhan oo muhiimka ah waxa weeye in la kulano dadka diasporada ama se qurbo joogta Soomaaliyeed wadanka u baahan waa xubin muhiim ah oo anaga muhiim runtii noo ah taageeradooda iyo juhdigooda Soomaaliya ay ku bixinayaan marka waa khasab laga maarmaan waan arkay hadii la yiraahdo ma jirta dalal kale oo aad sii maraysid Scandinavian-ka waxaan sii maray wadanka Sweden hadii la yiraahdo markii booqashadan ay dhamaato hadii la yiraahdo waad maasantahay sidoo kale guddigii qabanqaabada iska lahaa ee soo dhaweynta ra'iisul wasaare Cabduuli ku imaashadiisa dalka Norway caasimadda Oslo ayaan wax ka weydiiyay qorshaha soo dhaweynta Prime Minister-ka iyo sida uu noqon doono biri dawladda Norway ayuu la kulmayaa waayo booqashadan wadankan ku yimid waa booqasho dawli ah booqashadana waa maaragtay Soomaaliya kaliya ugu imaanaya dawladda Norway ayaa ku casuntay wadankan hase ahaatee si gaar ah ayuu u codsaday in Soomaalida diasporada qurbo joogta halkan ku nool inuu la kulmo xasan horta runtii waa mid farxad leh waa markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare Soomaaliyeed uu yimaado dalka Norway si official loo soo dhaweeyo anagu ka siyaasi ahaan runtii waa mid farxad noo leh iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda oo wasiirka arrimaha dibadda ka tirsan yahay xisbiga shaqaalaha ayaa waxay dawladda Norway imika ku mashquulsan tahay sidii Soomaaliya loo caawin lahaa wasiirkana wasiirka ugu koowaad oo dalka yimid oo official bisoo ku yimid sida hore loo sheegay ummadda dhan farxad bay wada gelinaysaa birina wuxuu la kulmayaa wasaaradaha iyo siyaasiyiinta dalku la kulmayaa talaadadana qaybta dambe Soomaalidu la kulmayaa madaxda Soomaaliyeed oo iyagu ah mid inta muuqata safarro ku jiro dalalka caalamka booqasho ku taga iyagoo hawlo shaqo ka fulinaya ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya booqashadan uu ku yimid dalka Norway ay tahay mid uu la kulmi doono madax sare oo kamid ah dalka Norway oo kala hadli doono arrimo runtii qiyaastii la sheegayo inay tahay mid quseyn ku leh siyaasadda dalka Soomaaliya telefishinka Royal Xasan Ras